Bismillah alxamdulilah soo dhawaada asxaabey waa su-aaleheen ee IQ testiga waxay noo joogtay su-aasha 11aad waxaa naga rabaa row nambarka uu dhigmi karo haddii aan fiirino columnka labaad waxaa laba jeer kusoo laabta letterkan e sidoo kale columnka labaad ee nambarada waxaa laba jeer kusoo laabta digitka 5 sidaa darteed waxaa isu dhigma e iyo 5 eedan waxay u dhigantaa 5 eedana waxay u dhigantaa 5 laakiin eeda hore letterka ka horeeya iyo letterka ka dambeeya ayaa isku nuuca 5 taana nambarka ka horeeya ka dambeeya isku nuuca sidaa darteed rowgan 454 iyo rowgan LAL waa isu dhigmaan eeda labaad xarafka ka horeeya ka dambeeya way kala duwan yihiin 5 taa korana nambarka ka horeeya ka dambeeya kala duwan sidaa darteed waxaa isu dhigma rowgan 851 iyo rowgan FAR waa isu dhigmaan sidaa darteed marka xarfaha nambar la isku aadiyo F waxaa kusoo aadi doona 8 marka F tan waxay noqon doontaa 8 R ta dambana waxaa kusoo aadi doona 1 marka roof waxay noqon doontaa row number ka bilaabanaya 1 8 u dambeyso option A maaha B maaha C D ayuu noqonayaa su-aasha 12 haddii aan u nimaado waxaa naga rabaa row shape-kani row numberka uu dhigmi karo haddaan eegno columnka koowaad waxaa laba jeer kusoo laabta white circle waxaa laba jeer kusoo laabta black triangle waxaa hal mar kusoo laabta black square sidaas oo kale columnka nambarada koowaad haddii aan fiirino waxaa laba jeer kusoo laabta 5 sidoo kale waxaa laba jeer kusoo laabta 3 waxaa hal mar kusoo laaban karaya 2 sidaa darteed waxaa is leh rowgani ka bilaabanaya black square in column 1 iyo rowgan ka bilaabanaya 2 waa is leeyihiin sidaa darteed black square-ka waxaa kusoo aadi doona 2 marka black square-kan wuxuu noqon doonaa 2 white circle-kan waxaa kusoo aadi doona 3 marka white circle-kan wuxuu noqonayaa 3 black circle-kan u dambeeya waxaa kusoo aadi doona 4 marka shape rowgani wuxuu ahaa doonaa row number u dambeyso 342 waxay u dambeyn doontaa optionka C option C ayaa saan ku dooranaynaa su-aasha 13 haddii aan u nimaado waxaa naga rabaa rowgan carat row numberka uu dhigmi karo markaad fiiriso columnka labaad waxaa laba jeer kusoo laabta letter A columnka labaad ee nambaradana waxaa laba jeer kusoo laabta 2 marka A waxay u dhigantaa 2 columnka afraad ee letterska markaad timaadana E ayaa 3 jeer soo laabata columnka afraad ee nambarada markaad fiirisana 4 ayaa 4 jeer soo laabata sidaa darteed E-da waxay u dhigmi doontaa 4 marka waxaan u baahan doonaa row number digitka labaad from left oo 4 yahay marka E ayaa digitka labaad from left oo 4 yahay marka E ayaan dooranaynaa su-aasha 14aad haddii aan u nimaado waxaa naga rabaa rowgan 2 3 4 5 row shapes oo u dhigmi karo markaad eegto columnka labaad markaad eegto waxaa laba jeer kusoo laabanaya 2 columnka labaad markaad fiiriso oo shapeskana waxaa laba jeer kusoo laabanaya white circle marka 2dani waxay u dhigmaysaa iyadu 2dan waxay u dhigantaa white circle ay u dhigantaa 2daasi markaad fiiriso rowgan labaad markaad fiiriso waxaad arkaysaa in uu ka bilowdo uu ku dhamaado rowga koowaad ee shapeskana wuxuu ka bilaabanayaa white triangle wuxuu ku dhamaanaa white triangle 4 waxaa kusoo aadaya white circle marka 4tan waxay u dhigmaysaa iyadana white circle bay u dhigantaa marka waxaan u baahannahay row shapes ka bilaabanaya white triangle godka saddexaad from leftna white circle noqonaya waxay ku qorxan tahay B weeyaan B su-aasha 15aad haddii aan u nimaado waxaa naga rabaa track rowgan letterska ah row shapes oo u dhigmi karo haddii aad columnka koowaad fiiriso laba jeer waxaa kusoo laabanaya K ayaa laba jeer kusoo laabanaya columnka koowaad ee shapeskana waxaa laba jeer kusoo laabanaya white square marka K waxaa isu dhigma white square K waxaa isu dhigma iyo white square-kaas isu dhigma marka waxaan u baahan doonaa shape ku dhamaanaya row ku dhamaanaya white square marka wuxuu noqon doonaa waa E amba D mid ka mid ah haddii aad eegto columnka afraad haddaad fiiriso waxaa laba jeer kusoo laabanaya 3 jeer waxaa soo laabanaya eeda T ayaa hal mar soo laabaysa columnka afraad ee shapeskana black circle ayaa soo laabaysa 3 jeer
black square hal jeer soo noqonaya marka black square waxaad arkaysaa inuu dhigmayo t marka t-da xataa waxay noqon doontaa black square noqon doontaa t-da marka waxaan u baahan doonaa shapes ka bilaab row ka bilaabanaya black square kuna dhamaanaya white square waa optionka d weeyaan option d bayna noqon markaas su-aasha 16 u dambaysa daan fiirinana waxaa nagala rabaa rowgan lif row numberka uu dhigmi karayo columnka labaad haddaad fiiriso waxaa laba jeer kusoo laabta e columnka labaad ee nambarada waxaa laba jeer kusoo laabta 0 marka eeda waxay u dhigantaa 0 columnka saddexaad ee letterska haddaad fiirisana s ayaa laba jeer kusoo laabata columnka saddexaad ee nambarada waxaa laba jeer kusoo laabanaya 7 marka s-na waxay u dhigantaa 7 marka hadda rowga laga rabaa lif waa rowga kaliya ee aysan ku jirin e-na kuma jirto s-na kuma jirto rowska kale ee letterska amba s aa ku jirta amba e baa ku jirta marka eedana waa 0 s-tana waa 7 marka waxaan u baahanahay row number oo aysan ku jirin 0 aysan ku jirin 7 waa rowgan oo ah 5 2 6 marka waana optionka b